Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta reer dhaqankaaba meel kastoo joogtaan meel walba iga daawataan basalaan qaaliya hawada idiin soo marinayaa waqti walba idin tahay wanaagsan intii xanuunsan ilaahay caafimaad sariica siiyo xanuunkana dembi dhaaf Allah uga dhigo intii dhammaan murugaysan ama dhibaato haysatana ilaahay dhibaatada ka dulqaado intaa kadib maanta waxaan leeyahay kusoo dhawaada aqalkii dhaqankaaba ama gabadha meeshan wax kusoo tibisa aqalkeedii ama guriga marka ay degayso oo ay doonayso marka inay halkaas deganaato insha Allah biidnillah marar badan waxaan idin tusay aqalada dad kale ay leeyihiin maxay tahay sida loo dhiso aroosyo adu waxyaabo badan baad meeshan kusoo gudbi jiray laakiin maanta waxa halkan lagu soo gudbinayaa gabadhan mar walba meel ka soo waranta ee miyiga ka soo waranta maanta gurigeeda gurigeen waa guri aqro gurigeeda ay markaan degayso ayaa halkaa laynkugu soo gudbinayaa marka maasha Allah idinkuna hambalyo soo dhaha maadaama miyigii markii horeba aan iska dul saari wax iska ahaa maanta waan ka baxay dul saarnimadii waan ka baxay maxaa la dhihi jiray inkastoo dadkayga aan la joogay haddana islaantii guri bay dhisatay waxbaa soo socda tolo maxay noqon doonaan insha Allah wax khayr bay noqon doonaan aqalka muuqaalkan waxaan ugu talagalay waxay tahay kaliya eedaraada gurigayga way ma ahan laakiin maadaama aan marar badan soo dubay alla kale ee gobollo kale ku yaala inaan intuso aqalada galgaduud inkastoo hadda kii ugu horreysay uusan ahayn oo mar hore aan soo geliyay muuqaaladii bilowgii aan soo geliyay aqalada gobolka galgaduud intay ka kooban yihiin sida loo dhiso haddana maantay maadaama anigaan gurigaan dhisanayay waxaan jeclaystay dadka inaan kaga sii faa'iideeyo bal aqalada dad badan oo gadaal iga soo biiray dad badan oo aqaladii sanaag oo kale soo arkay waxyaaba marka gobolka galgaduud ay ku kala duwan yihiin inaad marka aragtaan kale waxa intaas sii dheer in anigu maanta aqalka dhisayo marar badan baa arkaydin dad kale oo aqaladii dhisaya islaantii waa taa maanta aqalkii sidaa u xirxiraysa waxaan ku dhigay waxa leeyahay ayar dhigaha waxay tahay xoogaagu ku xarka gooyaa waxaan u xiiso qabaa dhisida aqalka aan dhisayo wax badan kulay wuu sugi doonaa sida u jeedaa marka waa ka gacmahaygan waxa ka madow dhigaha waxbaa la mariyaa waxa gacmahayga waxa ka madow waa dhuxushii wadinka u jeeda aqalka horta marka ugu horeysa aas-aaska aqalku waa udbo kadibna dhigaha ayaa ku xiga dhigaha waa la kala duwanaa aqaladii ugu dambeeyay channelka soo geliyay iyo aqalkan dhiguhu way kala duwan yihiin oo waxay u kala qaybsanayeen marka dhiguhu dhiga yaryar oo badan baa jiray aad u badan oo aqalada qaar la saaray laakiin dhigii badnaa ma lahan inkastoo Soomaalidu isku dhaqan tahay aqal Soomaaliga markii la yiraahdo haddana waxbaa lagu kala duwan yahay dhigaha kale meelaha qaar waa la kala badan yahay sidoo kale aqalka waxbaa la saarayo wasla arki doona aqalkan aqaladii horena dabcan waad aragteen waa lagu kala duwan yahay oo waxa lagu kala duwan yahay isagoo magaca aqal Soomaali wata ayaa waxbaa la saarayo sida loolasha maxay tahay waxyaabo badan aqala badan mesela aqalada sanaag oo kale ee hadda ugu dambeeyay aad baa loogu kala duwan yahay marka waad arkaysaan waxa ay ku kala bedelan yihiin hadii aan idin sheego dhigaha intay ka kooban yihiin waa 3 gambiso 3 lool 6dan waxa la isku yiraahdaa qabax baa la isku yiraahdaa waxa u sii koreeyay ku xiga 9 xabo oo loo yaqaan marayo ama rogaalo marayana waa la yiraahdaa rogaalana waa la yiraahdaa ereyada qaar hadaan qaldana waad isaxaysaan sababta islaantu dhaqanka laftigeeda ardayada ah marka maxay ka koobnaayeen 3 lool iyo 3 gambiso iyo maxay tahay 6 rogaalood hadii inta la isku geeyo waa 12 meeshan dhigaha waxay yihiin isku geynta dhigaha hadda anigu aan aqalada galgaduud aan ku arkay waa 12 laakiin gobolada qaar baa waxaan ku arkay dhiga aad u badan oo tiradooda malaha 30 ku dhowba marka muhiimadan waxay inta horta in la arko oo waa qaybtii dhigaha inta kale ee aqalka marka dhamaantiis waa wada caws wax weeye meelaha qaar aloolo iyo baa ka jiray waxa kale oo ka jiray waxyaabo badan oo aad u badan oo waxa kamid ah rarooyinka qaar laga sameeyay sida mayraxo kale laga wada sameeyay laakiin hadda aqalka dhamaantiis wuxuu wada noqonayaa dhigaha marka laga soo tago waxa la saaray dadka la saaray wuxuu noqonayaa wada caws ama wada dhambalo dhambalana waa la yiraahdaa hadda la wado waxa loo yaqaanaa waa dadbinihii hoose dadbinaha hoosena waxa ku xiga wareegyadii iyo maxay tahay korsaarihii marka 3 dadbinood 2 wareeg iyo maxay tahay 2 korsaar sidaas inay tahay ay u badan tahay marka muuqaalka marka maanta ma sii hadla karo cod baan idin sii saaraya gurigii dhaqankaaba ku soo dhawaada waa kana Kuleeyo
nagambote laawinayo gurxumada gidihadle laawinayo yowsa gurkaad ka shalayeen laawinayo gobashiis giryar calawe laawinayo barkintiis baati xariiran laawinayo deqaleegoy luqundherde laawinayo legaleegoy luqundherde laawinayo shanshadeeda shan halaala laawinayo sabarkeeda sodan jooga laawinayo luqunteeda lixalada laawinayo qosalkeeda qalmagooya laawinayo qosalkeeda qalmagooya laawinayo waa gobtii guurka sameede laawinayo waa gobtii geeyalaheede laawinayo waa gobtii geela bandeede laawinayo waa gobtii gaarileheede laawinayo markaba maalka la taagan laawinayo kun rimoorba u shaqayda laawinayo shan riyood ku duwi maayo laawinayo shan jirgaal ku rari maayo laawinayo shan muray ku gadi maayo laawinayo shan habrood ku tali mayso laawinayo bangigaadna fadhiheedhe laawinayo beesadaadna tiriheedhe laawinayo basadaadna dalaceedhe laawinayo nasab weeye ku nasibso